iskayla walbunadii jannada dunyada jeel caashiq iyo ka raystay bukaanadii oo dhamaantood lagu xasuustay iskoorkii 1 milyan inkastoo Soomaalida aad u qiimayso fanka iyo sugaanta haddana shacbiyada Sharma Boy waa shan qabo shanda wadanku shaqo male halo yeelo dhalli tushiiday maana la shuufo jeebku shilin male halo buuxsho shaadadu macna male ha shaqayso wiilkan xiran kabaha koobiga ayaa mucjiso ku noqday fanaaniinta kale ee dhigiisa waxaana bariyuhu u dambeeyay shita shaleemada TikTok waxa uu muddo kooban ku helay taageero shacbiyad ka duwan kuwa ugu horeeya fanka iyo fanaanimadaba qaar badan oo isaga qeyrkiisa ayaa hablo soo qaaway sidii loo aqoonsan lahaa halka gabdho fara ku tirisoo fanaaniin isku sheegayeen inay isku soo dhar dhigteen kan waa Sharma Boy oo maalmihii la soo dhaafay ruuxa baraha bulshada waxa lagu eedeeyay inuu sabab u ahaa dhicitaankii arday badan oo ku daadatay imtixaankii dawladda ee gobolka Banaadir walow warkaasi uu banaabur ku tilmaamay ay haddana soo saaray hees uu ku dhaliilay shahaadada shaqo la'aanta ka jirta dalka hooyo ee Soomaaliya isbeddelka social media oo TikTok horkacaya waxa 2020 Soomaalidu ka dhaxleen dhibaatooyin ay ka mid yihiin xaasas xijaabkii tuurtay oo badankood barida ruuxaya gabdho xiran dharkii rag oo xaraga mooda rag is cadeeyo oo qurux ku faanaya caruur dugsidii diidan oo daba mara ciroolo content jiro oo ciyaar mooyaan aqal kale lahayn fanaaniin kufsaday fanki oo taageero fara badan haysta iyo kuwa kale aan halkan ku soo koobi karin inkastoo dhibaatooyinkaas ay TikTok ka jiraan haddana waa abka kaliya ee dhalinta Soomaalida aadka u isticmaasho ma jirto wax lacag oo TikTok dhalinta Soomaalida ka maadaama shuruudaha habka dhaqaalaha loogu helay ku xiran tahay 1 milyan followers halka YouTube ay ku xiran tahay kaliya 1k subscribers taas oo ka dhigan kun jeer isticmaalka YouTube ku ka dib badan yahay TikTok waana sababta keentay in kuwa badan oo ku fashilmay YouTube ka ay maryahooda isaga dhaxdhaqdaan TikTok balaq bedel wariya balaq bedel Sharma Boy oo ah ninka kaliya ee ka waalay TikTok ayaa shaashadaha caalamka soo qabsaday dabayaaqada sanadkii tagay 2019 kadib koox YouTubers oo gacan qabtay oo lagu daray dadaalkiisa hal-abuurnimadiisa waxay sababtay inuu noqdo qof magac ku dhaxlay bulshada ku dhex nool yahay sababta ugu weyn Sharma Boy muddada kooban oo ku helay taageerintaas leeg waxa lagu sheegay inay tahay isla weynin la'aanta taas oo inta badan hore aan looga baran fanaaniinta qaarkood ee magac leh guud ahaan warbixinteena aan ku eegna shacbiyada Sharma Boy ee shahaadada dawladda halka ay ku hakina bahda qarsoodimeed isku duban oo dila balanta subscribe like la dhaca page-keena FB share tada way noo muhiim comment warkeeda nabadii saaxiibayaal